soo gudbinta barnaamijkan waxaa kaalin muhiim ah ka geysatay shirkadda korontada ee Nexom. Müslümanlar olarak 1,7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz. Nüfus yanında doğal kaynakları ve stratejik konumuyla da İslam ülkeleri gerçekten büyük bir potansiyel barındırıyor. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay shirka iskaashiga islaamka ayaa madaxda dunida muslimka ugu baaqay inay dib u eegaan heerka nololeed ee shacabkooda ay maamulaan isla markaana ay hagaajiyaan daryeelka iyo adeegga bulshooyinkooda ayna abuuraan heer dhaqaale oo wanaagsan taasoo ku iman karta oo kaliya haddii ay dhaqan geliyaan aragtida islaamka ee qabta in kuwa ladani ay caawiyaan kuwa liita isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri dalalka muslimku waxay leeyihiin khayraad fara badan oo dabiici ah waxay ku yaalaan goobo istiraatiiji ah waana badan yihiin oo waa 1.7 bilyan oo qof waxay kaloo leeyihiin raasumaal dad ah oo aad u ballaaran balse dunida muslimku dhaqaalaha dunida waxay ka haystaan wax ka yar 10% farqiga u dhaxeeya dalalka ladan iyo kuwa liita waxa uu ka badan yahay 200%. haddii ay muslimiintu bixiyaan sakada lagu sheegay tiirka afraad ee islaamka oo ay dhaqan geliyaan lama heli doono qof muslim ah oo faqri ah oo ku nool dal muslim ah muslimiinta waxaan leeyahay allah aamina oo ku kalsoonaada oo fuliya awaamiirta eebbe cid walba waad ka guulaysanaysaane badankiin waxaad qaadateen afkaaraha reer galbeedka ee dhinaca dhaqaalaha idinkoo iyaga u dulaysan oo ka cabsoonaya waadna ku halaagsanteen afkaarahooda balse hadda wixii ka dambeeya qaata afkaarta islaamiga ee dhaqaalaha anaa idiin huba oo idiin ballan qaadaya inaad guulaysan doontaan reer galbeedka laftirkoodu sanadihii ugu dambeeyay waxay qirayaan in afkaarta islaamiga ee dhaqaaluhu uu yahay kan dunida ugu fiican ugu ammaansan 65% saliidda dunida iyo 55% gaaska dabiiciga ee dunida oo dhan waxaa gacanta ku haya muslimiinta laakiinse dhaqaalaha dunida waxa aan ka haysanaa wax ka yar 10% halka reer Yurub oo dunida ka ah 7% ay dhaqaalaha dunida ka haystaan 22% halka Mareykanka oo kaligiisa uu dunida ka haysto dhaqaalaheeda 24%. 20 ka mid ah dadka dalalka ku bahoobay ururkan iskaashiga islaamka ee OIC ayaa guud ahaan gaaraya 350 milyan oo muslim ah waxay la hardamayeen dadkaasi noloshooda iyagoo ku nool xaalad aad u faqri ah madaxda islaamku badankood waxa muuqata in aanay u dadaalin shacabkooda haddii aan nahay madaxda bulshooyinkaas muslimka ah waxaana la ka rabaa in aynu si furan uga hadalno arrimahaas waa inaan runta wajahno dib isugu laabanno oo aynu fadhiga ka kacno intaas ayaan ku soo koobaynaa nuxurkii khudbaddii madaxweyne Erdogan uu ka jeediyay shirka iskaashiga islaamka ee Istanbul وعبدالرزاق شبو إن أنت ديبو كل ما يننا بتقليو جامعة بريق أفريقيا وجامعة وفرع وين بوتلان كل سجال بقول سجال يسجاشن كي أيام الله أساسي وأنا جامعة وفرع عبد الصومالية تدور قولوا كم إذا بوتلان أي فرعية كل هذا